soo dhawaada asxaabay dhammaanteen waxay nolol maalmeedkeena u adeegsanaa waxyaabo kala duwan waxaana jira waxyaabo aynu arkaynay ilaa yaraanteennii laakiin aynaan garanayn macnaha dhabta ah ay leeyihiin waxyaabahaasi sidaa daraadeed barnaamijkeenan maanta waxaynu daaha kaga qaadi doonaa qaar ka mid ah waxyaabahaynu aragna maalin kasta laakiin badankeenu aynaan garanayn macnaha ay ku fadhiyaan haddaba intaynaan u gudagelin barnaamijka subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada dambe ee soo gelino silika waxa laga yaabaa inaad shaygan yar dhowr jeer kaba ku iibsatay iyagoo la socda adigoon fahansanayn waxa kabaha laga soo raaciyay laakiin waxa lagu talagalay inay kabaha ka ilaaliso shiirka sidoo kalena waxay kabaha ka qalatinaysaa dhididka cagaha sida awgeed ha tuurin warqadan yar ee u qaada guriga si aad u isticmaashid markaad u baahatid waayo waxa ku jira warqadan yar midho yar oo faa'iido u leh kabahaaga waxaana ka kooban yihiin oo ku jirta midhahaas maadada loo yaqaano silicon dioxide waana maaddo sun ah sida awgeed ka fogay carruurta yaryar waxaanay sidoo kale faa'iido u leedahay warqadani in haddii taleefanka biyo kaaga dhaco in aad taleefanka dhex dhigi karto midhahan yaryar ee warqadda ku jira waxaanay awood u leeyihiin inay biyaha ka nuugaan taleefanka daloolka yar ee ku yaalla meesha laga farxasho ee suuliga qofka isticmaala farxaladan wuu garanayaa waxay qabato iyo godadka qaar ku yaallaba laakiin hore ma isu weydiisay daloolkan xagga sare kaga yaalla qasabadda waxa uu faa'iido leeyahay waa hagaag daloolkani wuxuu kaa saacidayaa in haddiiba haddaad ilowdid ood ka tagtid biyahoo furan halkii uu gurigaagu qarqoomi lahaa uu daloolkan yari biyaha nuugayo biyuhuna ka bixi doonaan isaga biraha buugta qaar dhabarkooda ku taalla waxaa laga yaabaa inaad u qaadatay inay birahani buugta ugu yaalaan qurux oo keliya laakiin xilliyadii hore waxay la dhibaatoodeen shaqaalaha samaynaya buugtu weerar uga iman jiray jiir gaajoonaya waxaana dhici jirtay inuu jiirku xaashadaha buugga wada cuno ama ay qaar ka mid a rifaan sidaa awgeed waxay shaqaaluhu arkeen in xalka keliya lagu joojin karaa yahay inay ku ilaaliyaan xadhkahan birta ah si aanu jiirku u arag xaashadaha ka hooseeya galka adag ee buugga jeebka yar ee xagga sare kaga yaalla jaakadaha kalaasiga ah laga yaabaa inaad koodhkaaga xaraga ku aragtay jeebkan xagga sare kaga yaalla waxaanay dadka qaar gashadaan maro midab leh si ay u dheelitiraan xaragadooda laakiin ma og tahay in jeebkan xilliyadii hore loo yaqaanay jeeb tuug waxaanay dadku gashan jireen wax kastoo ka lumi kara dhanka kalena waxay ka dhigan jireen jeeb xasuus iyagoo ku ridan jiray lacagta qaaliga ah halkay sidoo kalena dadka qaar sudhaan saacadaha xaragada calaamadaha yaryar ee taayirka baabuurka ku yaalla haddaad gaadhi wadatid waxaa kolleyba jirta inaad aragtay mar uun calaamadahan taayirka ku yaalla astaamahanna waxay shaqaalaha qaabeeya taayirada ugu dhigeen si ay ugu tilmaamaan qaabka iyo noocu yahay taayirku waxaanay astaamaha qaar ka turjumayaan micnayaal gaar ah tusaale ahaan astaanta jaallaha ah waxay tilmaamaysaa meesha ugu daciifsan taayirka astaanta casaanka ahina waxay sheegaysaa meesha ugu adag uguna culus taayirka halkay dhibicda yar ee caddaankaana sheegayso inuu taayirku dheeli tiran yahay markaad rakibayso taayirka daloolada hoosta kaga yaalla sameecadaha iPhone-ka haddii aad sameecadahan isticmaashid waxaa suuragal ah inaad aragtay leemankan isla markaana aad u qaadatay inay qurux gaar ah u sameynayaan sameecadaha laakiin sidaa ma aha waxaana shirkadda Apple ugu samaysay dalooladan sameecadaha inay ka nadiifiyaan hawada ku jirta haddaynu faahfaahin ka bixinno waxaa la wada garanayaa in codku qaab gariir ah ku soo baxo ama vibration markuu soo baxo soono gaadho dhegta waxaa isbedelaya tayadii codka waana sababta ay dalooladan sameecadaha ugu sameeyeen iyagoo labadan dalool ay ka galayso hawadu kadibna ay hawadaasi ka saarayso codkii xumaaya ku jiray sidaana uu codku saafi ku noqonayo garaaryaha dhinaca hore kaga yaala xadhkaha kombiyuutarka qaar ka mid ah afka hore ee xadhkahani waxay leeyihiin 2 jeex qaar kalena 3 ay leeyihiin sida awgeed haddii qaar ka mid ah laymankani jabaan way xumaan doontaa waxaanay soo qaadi kari waayaysaa bar ka mid ah codkii ay soo qaadaysay daloolka yar ee dhinaca hoose kaga yaala qafilka waxay inteena badan moodaa in daloolkan yar qaab farsamaysan looga jabiyo qufulka markii furihiisa la waayo inkastoo xaqiiqadu tahay in laga furo oo laga jabiyo haddana waxa uu leeyahay faa'iidooyin kale waxaanu ka ilaaliyaa qafilka inuu daxlaysto ama duugoobo waxaanu markuu adkaado daloolkan yar lagaga shubaa gaasta iyo wax kastoo dabcin kara daloolkan yarna waa wadnaha qafilka waana intuu noolaan karo xumbada shaambooga ah ee baadka lagu maydho lagu shubo kadib markaad maalin dheer shaqo ku soo jirtay dabcan waxa kugu waajibaysa inaad qubaysato inkastoo ciyaalnimadii shaambooga badan iyo waxyaabaha saabuunta leh aad col la ahayd haddana qubaysiga aad qubaysanaysaa kama marnaa inaad isticmaasho waxyaabaha xumbada iyo saabuunta leh ee lagu talagalay in lagu qubaysto haddaba sirtu ma ahuun in xumbadaasi si wacan kugu maydho jidhka balse waxay ka ilaalinaysaa biyuhu inaanay qaboobin kuna sii ahaadaan dirrimaadkooda ilaa intaad ka baxaysid biyaha madaxa sare ee kursiga baabuurka ku yaalla waxaa lagu tilmaamaa madaxa kursiga darawalka ku dhijisan mid aanu ka maarmayn darawalka gaadhiga wadaa iyadoo ka badbaadinaysa inay qoorta jabto lacal laaba haddii uu shil galo margiga iyo qadaadkana waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daciifsan jidhka bini'aadanka inkastoo la wada garanaya taas haddana madaxan yari kursiga wuu ka bixi karaa sidaa daraaddeed waxaad iskaga jabin kartaa daaqadda baabuurka haddaad ku dhex xanimatid baabuurka dhexdiisa tusaale ahaan adigoo isticmaali kara haddii uu gaadhigaagu badda kugula dhaco ilaahay kuguma keenee muuqaalkan intaas ayuu ku eegyahay
haddaad muuqaalkan ka heshay like saar haddaad nagu cusub tahayna subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada dambe aan soo gelino